kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada sheekadii curad oo aad halkan kala socoteen. sheekadan oo ah qiso dhab ah oo ku dhacday mid ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa waxa qoraalkan ka sameeyay wariye Maahir Jaamac Aadam, waxaana codeynaya anigoo ah Ciise Maxamuud Ciise. halkaad kala soconaysaana waa channelka Ogaalka Audio Som. ku soo dhawaada qaybta xigta qaybtii horay aad u soo dhageysateen. horta gabadha yar ma ahan mid wax dhibaato ah gaarsiinaysa isaga, laakiin waa mid la noolaanaysa ilaa muddo. hadda waxay la degan tahay qolkiisa, aad bayna ugu dhiban tahay inay la noolaato isaga, waayo inta badan ma hesho firaaqo ay isugu muujiso ama isku tusto isaga. ayadu waxay u baahan tahay mugdiga, laakiin isagu wuxuu had iyo jeer rabaa iftiinka. sida awgeed mararka qaar waxay isku dayaysaa inay qolka ka dhigto mugdi si marka uu soo galo uu u arko ayada, laakiin isaga cabsi daran oo uu ka qaaday mugdiga awgiis. mar walba oo qolkiisu mugdi uu noqdo wuxuu isaga laabtaa qolalka iftiinka leh. taas ayaa ka mid ah caqabadaha labadooda kala xanibay. waxaa sidaa weli ku warbixinaya xikaas oo ah ninka ay soo raacayay gabadhan qaladay noloshayda. warbalaaya la tagtadan noo sheeg ma jinba mise waa insi, ayaan mar kale ku celiyay anigoo cadho la dharbaaxaya miiska dushiisa. weliba dhinaca kale aan taliyihii aamusinayo u muujinayo inaan u baahnahay ogaalka iyo fahamka gabadhan yar ee i wareerisay. taliyihii oo ii garaabaya ayaa sii xoojiyay weydiinteyda oo yidhi, waa runtii ee bal noo sharax gabadhan waxa ay tahay. horta waxaan idin fahamsiinayaa falka la isku raacay waa inuu ninkan helo xisdhow. marka waxaa muhiim ah si loo fuliyo arrinkaas in la helo sawir ninkan maskaxdiisa mar walba ka guuxa ama muuqaal marka uu arko uu cabsado ama cararo. si taas loo fuliyo waxaa lagu qasban yahay in la isku helo dhowr arrimood. arrinta koowaad, ninkan oo hurda, suuxsan ama sarqaansan calashaan maqan yahay badi dareenkiisa. 2 xilli mugdi ah ama habeen ah. lambar 3, maadaama lagu talaalayo maskaxdiisa waa inaan anigu joogaa meel ay isku gaari karto gacantayda iyo madaxiisa. sidan waa sababtaan u soo safray ama saqdhexe ugu imid qolkiisa. intaas markuu xikaas yiri, anigu wax shaki ah marna igama soo gelin arrinkan, laakiin ragga kale waxay iila muuqdaan kuwa aanay weli sheekadu dhaadhicin. aniga iyo xikaas ayay markan maraysaa qisadaydan. su'aal iyo jawaab ayaana dhex maraysa. qof kasta oo na maqlayana wuxuu noo turjuman karaa labo ka sheekeynaya wax qiyaali ah ama been ay isu jiibinayaan laba ruux. sideedaba nolosha qofba taariikh iyo dhacdo gooni ah bay siisaa. mararka qaarna fahamka dadku wuu kala duwanaadaa, laakiin waxa xaqiiqo ah tani maahan sheeko ama ruwaayad dad lagu maaweelinayo ee waa qiso dhab ah oo nolosheeda qayb ka mid ah ay tahay. adeerow adeerna iima tihide waxyahow sheedaanka maala. oday xikaasow waxaad ii sheegtaa gabadhan yar dab ha ku dhacdee ilaahay idamkii maxay ahayd? aniga ayaa haddana weydiintaas ku laabtay. waadna i colaadinaysaa, haddana inaan wax kuu sheegana waad rabtaa. cajiib taliya, waa kaas aadanaha aan kuu sheegay inuu yahay maagis socota. xikaas, haa waa runtiis wiilka ee annaga oo dhan baa kaa sugayna waxa ay tahay gabadhan yar ee noo sharax. taliyihii ayaa ugu jawaabay. xikaas hadalkiisa wuxuu si cad iigu yidhi,
gabadhu waa jin. Markii aan waayay jinka waaweyn ee hawshan ila qaban lahaa ayaa waxaa la ii soo siiyay gabadhan yar oo la soo qasbay. Xilli habeen ah ayaan soo kaxeeyay ninkan oo hurda baan u nimid, kadibna waxaan gacanteeda saaray madaxiisa waxaana ka shaqeeyay sidaan gabadhan u dejin lahaa gudaha madaxiisa, laakiin waan awoodi waayay. Waxaanse ku guulaystay markii dambe inaan la dejiyo gabadha yar. Ma aqaano habeenkaas ninkan wuxuu sameeyay, laakiin aniga hawshayda fashil bay ku dhawaatay. Waxaanse u baxsaday kursi ay imaamada iga soo siisay qolkeeda oo aan gabadha dushiisa ku soo reebay. Inta uu kursigaas yaalo xaafadda dhexdeeda, gabadhaasna way joogaysaa guriga. Hadday ka hesho guriga ama nolosha ninkanna meel ugama socoto, waayo waa jin dhagool ah oo reer baadiye ah. Horta eegmada dhagoolka way lahayd. Waxaan xasuustaa marka ay maalinkii soo eegaysay sida ay indhaha iigu soo gubaysay gabadhan. Aniga ayaa niyadeeda iska yidhi, mucjisada adduunyadu badanaa mararka qaar dadka wax faaliya ama adeegsada jinka waxay fuliyaan hawl ay hadhow ku adkaato inay ku xakameeyaan halkii ay la rabeen. Haddaba armay qisadayda taas la mid noqotaa oo walaaca cusub ee durba ay soo food saaray. Su'aashaydii igu muhiimsaneyd ayaan weydiiyay oo ah, anigu ma caafimaad qabaa mise waan waalnahay? Maya, ma caafimaad qabtid mana waalnid, ayuu igu yidhi, ee xisdhow uunbaa ku haya. War waan caafimaad qabaa, xisdhow iyo waalidhow adiga ayay ku hayaan. Wax Ilaah yaqaan noo sheeg. Anigoo aad u qaylinaya ayaa intaas ku iri xikaas, laakiin isagu wuxuu igu yidhi, kaliya ma ahan hawalwalin ee xisdhowga faamilka qaar baa kula qaba oo laga yaabaa sida wax been ah ay adiga isu kaa sawirayaan si la mid ah inay ayaguna u arkayaan wax aan sax ahayn mararka qaar. Walaalkay Khaalid oo marnaba aan hadlin inta ay sheekada socotay ayaa markaas la soo booday, oo maxaad ku samaysay qoyska oo dhan? Inta uusan ka jawaabin su'aashaas waxaa soo galay taliyaha oo yidhi, bal intaas noogu sima hadalka. Duhur waa naga tegay, anna shaqo ayaan leeyahay adag, marka beri xilligan oo kale isu kaaya keena. Halkaas waxaa ku hakatay sheekadii xiisaha lahayd oo aan ka helnay xogo badan. Sida ku cad qisadayda uma baahna wax cusub, ee kaliya waxay ku dhammaan kartaa in la helo jawaabaha waxa weydiimihii ku xusnaa bilowgeedii, sidoo kalena micno loo helo dhacdooyinka ama kaaga ahaa ee ku xeedhnaa isbedeladii noloshayda. Markaan wax yar ka soo dhaqaaqnay saldhig ayaan walaalkay Khaalid weydiiyay ninkan siduu halkan ku yimid, micnaha yaa soo xidhay oo keenay saldhigga. Khaalid wuxuu ii sheegay in ninkan uu muddo xidhan yahay oo walaalkay Maxamuud uu soo qabtay marka uu helay xogta sheekadan, laakiin aniga la iga qarinayay. Wax kasta si dhow ayaan u soo ogaanayaa. Waxaa isfurfuraysa qisadayda, laakiin waxaan dhaar ka maray inaan marna seexdo qolkayga ilaa uu Khaalid yidhi, aniga kula soo degaya walaal ee habsan. Markii aan tagnay xaafadda oo aan xilligaas gaariga ka degayno ayaan haddana Khaalid mar kale su'aalay, saddexda haweenka ah weli walaal ma wada fahmin? Safiyo, Maxamuud sodohdiis iyo maamada waan fahmay, ee tan kale ee yar ee maamooyinka la socotay waa tuma. Indhahaygu xilligaas waxay hayaan Zahra oo aan leeyahay hadday ayada noqoto dib ha u salaamin weliga. Laakiin Khaalid wuxuu ii sheegay magac kale oo ah Faadumo. Horay kama garan qofkan Faadumo. Khaalid wuu ii saalay oo wuxuu ii sii raaciyay dumaashideen ama Maxamuud xaaskiisa. Ma malaynayo heerka ay gaartay farxadda iyo kalsoonida aan gudaha ka dareemay, waayo haddii ay Zahra noqon lahayd qofkan waxaa iga guuri lahayd waxa la yiraahdo kalsoonida oo dhan. Haddana wax yar kadib waxaan garwaaqsaday hadalkii adeer ee ahaa waa saddex qof
waxa dhibaatada ka dambeeya haddana aadan rumaysan karin. safarka maamada waa sax in walaalkeed uu xanuunsanaa oo waxaa lasoo sheegay isla maalinkan saldhigga ka soo laabtay geeridiisa. haddaba maalmo kadib way nagu soo wajahan tahay. laakiin Faadumo, caruurteedii iyo hooyadeed Safiya waxay isku soo xidheen guriga, wayna diideen inay xitaa annaga naga furaan si aan xaalka u dejino. Maxamuud waa la soo daayay maalinkii xigay asagoo niyad jabsan ayuu nala soo degay guriga. waxaa lagu ballamay in la sugo maamada oo hal mar qur'aan xoog leh lagu wada aqriyo guriga iyo dadka ku nool oo dhan. laakiin waxaa hubaal ah in dhulkii garaashka ahaa iyo gurigii dabaqa sugaha ahaa midna uusan gacanta reerka ku jirin. waxaa dhab ah hadalkii uu habeenkii adeer igu yidhi ee ahaa Maxamuud waxaa hadda haysta wax ka sii daran ayaa sugaya. muxuu go'aankeena u dambeeya noqonayaa? sidee noo qancin doonaa Maxamuud? muxuu xikaas iigu sheegi doonaa gurigii lagu muransanaa ee ay gabadha iga gashay? qisadaydan weji noocee ah ayay noqon doontaa dhammaadkeeda? waxay qisadan curad qof walba oo la socday bari doontaa in adiga oo aan waxba galabsan aad noqon karto dulmane ay noloshiisa u diidaan kuwa aanay hanti, siyaasad iyo aqoonba gaar ah ba idinka dhaxayn. haddana waxyaabaha hoos u dhigay halisihii la ila wada damacsanaa ee uu garan waayay xikaas waa siro muhiim ah oo aad qaybta u dambaysa ee noo harsan qisada ku heli doontaan. la soco qaybta ugu dambaysa uguna xiisaha badan sheekada curad qaybta 15.